Asalaamu calaykum Soomaaliyey waa salaamay marka koobaad marka labaad waxaan idii hayaa war farxad la qaasatan dadka haysto I-94-ka maalin dhaweed waxaan idii sheegay inay jiraan dad badan oo I-94 haysto oo ku xiran gobolka Texas laga qabtay gobolka Minnesota halkaa la isku geeyey marka dadkii inta badan waa la soo daayay intaan ogahay inta badan yaanan dhigin dadkii oo dhan waa la soo wada daayay hal qof oo xiran layma sheegin kama warhaayo dadkii laga keenay gobollo kale amaba meelo matalan aanan ogeyn amaba wax xog aanan ka haynin dadkii laga keenay war kama haayo laakiin dadkii Minnesota laga qabtay ee lagu xiray gobolka Texas waa la soo wada daayay way yimaadeen maalin dhaweed waxaan idin sheegay wiil kamid ah dadkaa la xiray oo qabay cudurka la yidhaha qalalka dadkii la soo daayay uu ka mid noqday maanta ayaaba dhakhtar familigiisu ay geeyeen waxaa kaloon idiin sheegay inaan matalan aydan update aan soo siin doono marka maalmahan waxaan idin ka maqnaay waxaan idila sugayay dadkaas waxaa kaloon rabaa iyadan inaan idiin sheego dadkaas qaar ka mid ah ayaa matalan waxay yiraahdeen waxaan rabnaa inaan dadka uga sheekeyno waxyaabihii aan ku aragnay xabsiga dhibaatada iyo waxyaabaha badan ay dadku ay kala kulmaan kolley markii diyaar noqdaan insha allah waa idiin soo gudbin doonaa taas dadkii la xiray ee haysta sharciga ku meel gaarka ah waxay ku doodeen matalan sababta loo soo xiray inaysan fahansanayn in maraykanku oo isagu soo qaatay dadkan ayagoo kaamam qaxooti oo Kenya iyo Ethiopia ku jiro la keenay dalkan si nidaam ay ku imaadeen haddana in la xiro sabab la'aan marka arrintaas ku doodeen kabacdina kulley wax jawaaba lagama siinin waa laydku qaldamaa la yiri raallahada sidaas ayaa lagu soo daayay marka intaas la socda I-94 haddaad haysato bashaarayso iska shaqayso ha cabsanin legal immigration status had haystaa si sharciyada waddanka ku timid waxaad ka cabsataahi ma jiraan 90% walow aan cabsida 100% aan meesha ka saaraynin se yeeshee haddadan marnaba idima saarno haddii aad tihiin I-94 wax culays idima saarno amaba green card haddaad tahay taas waa midda labaad waa I-94 matalan waa ICE maalin dhaweed ninka la yiraahdo Tom Holmes oo ah ninka Trump u qaabilsan gobolkan wuxuu yiri 700 oo kamid ah ICE ayaan dhimay haddana adiga tirada tartiib loo yareynaa yireen laakiin adiga labadii maalin la soo dhaafay oo ay maanta ku jirto ICE waa la waayay meel yar ayaa laga sheegay marka ICE 90% inay noqoto ay u badan tahay waxaa kale u badan tahay arrinta markii horeba 3,000 oo ICE ayaa magaalada la keenay inay ahayd sheeko argagixis ah oo dadka lagu cabsi gelinayay si dadku matalan ay cabsi dheeraad u dareemaan marka taasi waxay u egtaa ICE shaqadeedii inay yaraatay dhalinyaro badan oo darbi ka booda shaqooyinkoodii waa ku laabteen qaarkood hadda ay habeenbar dhaaftay saacaddu qaarkood aan la hadlay caawa aan la hadlay galabtaan la hadlay magaalada ICE lagama soo sheegin xitaa dadkii matalan baabuurta limousine-ka waday iyo dad badan oo la xiriiray iyo xaafadaha ayaguna ma soo sheegin ICE marka waa yaraadeen waxaa la yidhaha haddana xoogga waxay saarayaan dadka criminalska ah oo criminal record leh oo hadda kahor maxkamadii ay xukuntay oo matalan xogtooda ay maxkamadu hayso inay dambiilayaal yihiin iyo dad maaragtahay iyagu ay raadsanayaan oo hadda ka hor oo amar maxkamadu ay ku bixiseen waddanka laga saaro oo order of removal court order haysto in waddanka laga saaro maxkamadii ay xukuntay badiyow saas ah oo hadda ayay daba socdaana la yiri marka dadkii iyo wadooyinka la iskaga qabsanayay baabuur la istaajinayay waxyaabahaas oo dhan hadda wax jira maaha wixii kasoo kordhana waa ogaan doonaa
taas waa mid. waxaa la weydiiyey Canada ka waran. waxaan rabaa inaan marka hore caddeeyo aniga lawyer maahi, laakiin waxaan rabaa sharciga waxyaabaha oo basiga ah uma baahna inaad lawyer tahay. waxay u baahan yihiin inaad wax luuqadana wax ku qoran yihiin aad fahamsan tahay, isla markaana aad fahmi karto sharciga. marka sharciga Canada oo aan isha soo mariyey ayaan rabaa iyadan idinla wadaago. waxaad ogtihiin dad badan inay derbi ka tallaabeen oo dhalinyaro badan ay matalan Canada galeen intii operationkan uu socday. marka koley dhalinyaradii tagtay qaar waa la qaabilay oo waxaa loo aqoonsaday inay asylum yihiin, inay magangeliyo doonkoodii waa la matalan sabab lagu qanci karo noqdo. qaar waa la diiday, qaar kaleeta process weli ku jiraan. koley haddii aad tahay qof ku sugan Maraykanka gudihiisa, koley dhalinyaradii xadka ka tallaabtay badankooda ama qaar aad taqaanaa amaba qof yaqaano ayaa taqaana matalan wixii xoogaha ku saabsan ayaga ayaad sii weydiin kartaa. laakiin sharciga Canada muxuu ka qabaa ayaan rabaa iyadana inaan xoogaa yaraan ka sheego. marka ay noqoto dad badan oo la siiya denial, hadda dhalinyarada darbiga boodku hal qodob ay ku celcelinayaan, waxay leeyihiin haddii aad warqadda denialka aad haysato oo America ay ku diiday oo asylumkaadii la diiday, matalan Canada waxaad horey ka qaadanaysaa. laakiin aniga markaan akhriyay shuruudaha ku xiran, inta badan 99% in lagu qaatay u badanta horta kow. laakiin shuruudaha ku xiran maxaa ka mid ah inaan matalan haddii aad Maraykanka muddo dheer aad deganayd, Canada horey ka qaadanaysaa. waa qodob shuruud lagugu qaadan karo. waxaa kaleeto oo lagugu qaadan karaa inaad xilligii koobnaa ee loogu talagalay markaad xuduudda kasoo gasho Maraykanka aad warqadda waqtigii loogu talagalay haddaadan ku xaraynin, sidaa daraaddeed lagugu diiday, taasna xaqaad u leedahay. oo diidmadaasna waa diidmada ay Canada aqbalayaan ay ku jirtaa. diidmada kaleeto oo ay aqbalayaan waxaa ka mid ah paperwork error, inay warqadahaadii ay wax kaa qaldameen, sidaa darteedna lagugu siiya diidmo. waxaa kale ay aqbalayaan in kayskaadii la iska xirayba iyadoo aanan matalan lagu dhageysan oo aan maxkamad lagu geynin. kayskaadii case close inta lagu soo qoray haddana denial lagu soo raaciyay, taasna waa ku aqbalayaan. haddii uu dagaal ka bilowdo wadankii aad ka timid, waxaan malaynaa hadda Ethiopia dadka ka yimid oo kaleeto waxaa laga yaabaa inay cudurdaar ka isticmaali karaan maadaama meelaha qaarkood oo Ethiopia uu dagaal ka socdo. haddii wadankii aad ka timid uu dagaal ka bilowday, dagaal uu ka jiro, xadgudubyo aadanaha ka dhana ay ka jiraan, ayadana waa wax lagu qaadi karo oo humanitarian case ayaad qaadan kartaa. taasne haddii aad ku sugan tahay xaalad caafimaad oo u baahan daryeel gaaran, ayadana waa lagu qaabilayaa. haddii ay jiraan caddaymo dheeraad ah oo ka duwan wixii lagugu soo diidayna, ayadana waa ku qaadanayaan. isku soo duuduub, warqadda diidmada haddii aad haysato 99% in Canada ay sharci ku siiso oo asylum ku aqoonsato ay ku soo dhaweyso ayaa meeshaas ka cad. Canada iyo Maraykan marka maxaa ka dhexeeyo agreementii waxaa jiro la yiraahdaa safe third country agreement. agreementigaas wuxuu leeyahay wadankan qofka wadanka uu ka yimid waa wadankii koobaad, waa first country. second countryna wuxuu noqonayaa Canada amaba America. third countryna wuxuu noqonayaa wadanka saddexaad oo qofku kasii aadayo. marka agreementigaas ku jiraan sharcigaas waxaa ugu qoran wixii Canada ka soo dhaco oo dibadda ka yimaado oo Canada ka soo tallaabaya xuduudda caadi u soo maro oo aad aragtaan Maraykan uu nagu soo celiye. wixii annaga xuduudda si toos uga soo tallaabo oo meelaha laga gudba ka tallaabo aan aragnana annaguna
adigeedi ka yimaana wada kusoo celinaynaa. heshiiskaasaa horta ka dhexeeya Canada iyo Maraykan. heshiiskaas weli lama borinin, weli waa u shaqaynaya iyaga. heshiisku wuxuu leeyahay marka exceptions, waxyaabo oo matalan saamaxaya uu leeyahay in heshiiskaas uusan ku qabanin. waa 4 qodob. qodobka ugu horeeyo, haddii Canada ay joogaan close familygaada hadday Canada joogaan, close familyga maxaa ka mid ah xaaskaada, waalidka, ilmahaada, kuwa ilmahaad walaalo tihiin, qofaad walaalo tihiin, awowga, ayeyda, dad sidaasi hadday Canada hadday kuu joogaan oo deganaasho legal status, adiga deganaasho sharciga Canada ku haysto, Canada waa ku qaadanaysaa. taas waa qodob. qodobka labaad, haddii aad tahay qof 18 sano ka yar, ilma 18 sano ka yar haddii aad tahay, oo aadan waalidka aysan joogin Canada ama Maraykanne, Canada waa ku qaadanaysaa. taasna waa shuruudda labaad oo agreementiga aanan khusaynin. shuruudda saddexaad oo Canada ay kugu qaadan karto waxaa ka mid ah inaad haysato inaad Canadian valid visit, matalan si sharciga inaad Canada kusoo booqatay amaba bermad aad haysato adiga oo visa ku yimid ayaa Canada waxaad codsan kartaa inaad viisahada bedelato oo aad tirahdid asylum ahaan halay qaato. taasna Canada waa ka furan tahay, qaab procedure oo looyarada la isticmaalayo ayaad maraysaa. qodobka afraad waa death penalty risk. haddii wadankii aad ka timid aad ka baqayso in lagu dilo, xadgudubyo lagugu sameeyo oo dil horseedi karo, taasna ayadana waa saamaxaaday ku siinaysaa, sharcigan waa kaa saamaxaysaa. isku soo duuduub 4 qodob meesha kusoo sheegay, agreementiga Maraykanka iyo Canada ma khuseeyaan. Canada haddii 4 qodob midkood kugu aragto, haddii aad 4 qodob midkood aad la kulanto amaba aad buuxiso, Canada sharci waa ku siinaysaa. waxaa jiro qodobka ah matalan haddii aad muddo dheer Maraykanka ku nooleed. waxaa jiro hadda nin aan anigu aqaano shakhsiyan oo Maraykanka muddo dheer ku noolaay, oo Canada tagay xilligii gala Canada la dhihi jiray Trump, xilligiisa Trumpkii hore 2017. sharci ayuu ku leeyahay hadda Canada, Maraykanne sharci waa uga dhaarteen. marka waxuu asagu ka guulaysta fursadda ah Canada madnaha Maraykan ayuu muddo dheer deganay, long time residence status oo haysta oo America ah. intaas ayaan rabaa inaad la wadaago. dabcan haddii aad rabto inaad Canada aado ama aad Maraykan joogayso, badanaa wax kasta riskigay leeyihiin. dabcan haddii aad xuduudda si toosa u marto, meesha dadku ay ka gudbaan aad aado, oo meelaha dadka loogu talagalayo toos, Canada waxaa ku qoran sharcigeeda, haddii aad meesha laga soo galo aad toos soo gasho waa ku celinaynaa. laakiin haddii aad dhuumato ood wareegato oo Canada gudaheeda lagugu arko, processkaada iyo waxaada way ka duwan yihiin. inaad decisionkaa qaadato waxay u baahan tahay legal counseling. marka waxaad u baahan tahay inaad lawyerkaada la fariisato oo tiraadid marxaladan aan maraaya, halkay ii roon, Canadaan aada, Maraykankan joogaa, fursadahaygu waa sidee. marka intaadan go-aan gaarin oo macluumaadka aan kuu sheegay aadan go-aan ku gaarin, waxaan kugula talinaa inaad lawyer la tashato. xogtaan aan kula wadaagayo waa xog public ah, matalan qof kasta uu akhrisan karo sharciga Canada sida inta ku qoran iyo arrimihii haysta iyo update-kii dadka haysto I-94. taas ayaan rabaa inaan idila wadaago. insha Allah wixii soo kordho maalmaha soo socdo, insha Allah iyadana waa idila soo wadaagi doonaa. waxaan kusoo gabagabeynayaa
hadda cabsidii waa yaraatay dadka guryaha ku jiro adigoo taxadarayo hala soo adeegto dadka aanan dhaqaalahaan aan haysanin oo aanan awoodin inay matalan soo adeegtaan oo fursadda haysanin fadlan fariinta si gaara iigu reeb waa insha allah waa lagu caawinayaa sidaad ku heli leed waxyaabaha cuntooyinka iyo waxyaabaha daruuriyaadka aad u baahan tahay taas ayaan rabaa inaan idinla wadaago. Salaamullah.